السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وياسين محمد maanta waxaan doonayaa inaan idin kala hadlo arrin aad u muhiim ah. shanta nooc ee insurance-ga u kala baxayaan rabaa maanta inaan idin kala hadlo. caymis inaad haysato waa muhiim. waxaa iyadoo sidoo kale aad u muhiim ah inaad taqaano caymiskaaga wuxuu kaa bixinayo haddii ay dhibaato dhacdo. qaybta koowaad waa liability waxa lagu magacaabo. waa waxa state walba uu kugu khasbay inaad haysato ugu yaraan state-ku waxa uu ogol yahay waxa ugu yar ee la iibinayo. liability markaa waxaa weeye wuxuu khuseeyaa wixii dhibaato ah ee aad dad kale u geysato, wixii dhaawaca dad kale u geysato iyo burbur hantiyeed ayuu khuseeyaa. la soco liability ma khuseeyo wixii adiga iyo hantidaada soo gaara. hantidu markaa maxay noqon kartaa gaari iyo guri iyo wixii la mid ah. qaybta labaad waa collision coverage. collision wuxuu kuu sameynayaa wixii burbur ah ee gaarigaaga soo gaara haddii aad cid ku dhacdo adigoo gaarigaaga wado. markaa haddii gaarigaaga ay wax soo gaaraan iyadoon la wadin collision ma khuseeyo. tusaale ahaan haddii gaarigaaga isagoo aan la wadin geedu ku duldumo, la xado, uu gubto ama dabayl ay waxyaalo ku duldumiso, collision ma khuseeyo. qaybta saddexaad ee caymiska waa waxa lagu magacaabo comprehensive coverage. comprehensive coverage wuxuu kaa bixinayaa wixii collision uu bixin kari waayo ee gaarigaaga soo gaara. marka comprehensive coverage basically wuxuu bixinayaa wixii dhibaato ah ee gaarigaaga soo gaara ee awooddaada ka baxsan. waa waxyaalahan soo socda: gaarigaaga isagoon la wadin haddii la xado, uu gubto, geedu ku duldumo ama adigoo wada aad xayawaan ku dhacdo. comprehensive coverage ayaa waxyaalahaas oo dhan khuseeya. la soco collisionku wuxuu sameynayay haddaad wax ku dhacdo gaarigaaga adigoo wada. comprehensive-kana wuxuu sameynayaa gaarigaaga wixii soo gaara iyadoon la wadin. mar kale haddii aan si guud u dulmarno saddexdii qodob aan ka soo hadalnay, waxay kala ahaayeen liability oo khuseeya wixii dhibaato dad kale u geysato, collision coverage oo khuseeya wixii burbur ah ee gaarigaaga soo gaara, iyo comprehensive oo khuseeya wixii dhib ah ee gaarigaaga soo gaara ayadoo aan la wadin. qaybta afraad waa waxa khuseeya wixii dhib ah ee adiga iyo ciddii gaariga kula saaran soo gaara haddii aad shil gashaan. haddii markaa lagaa gardaran yahay wixii dhibaato ah ee idin soo gaara, waxaa daboolaya liability-ga qofka idinka gardaran wixii dhibaato ah dhaawaca idin soo gaara. laakiin waxaa aad iyo aad u muhiima qofku markuu caymis uu iibsanayo inuu ku darsado medical coverage waxa lagu magacaabo, ama wax caafimaadkiisa waxyaalaha yaryar ee fudud ee soo gaara ee kafargaraynaya. tusaale ahaan haddii nabarro yaryar ay ku soo gaareen ood emergency-ga tagto, wixii biil ah ee lagaaga soo dallaco caafimaad haddii aad haysato isagaa kaa bixinaya. marka always dadka waxaan kula taliyaa ugu yaraan $5,000 waa inay ku darsadaan. isteedyada qaarkood sida Minnesota waa inaad iibsataa waxa lagu magacaabo personal injury protection oo daboolaya wixii dhibaato ah ee idin soo gaara. qaybta shanaad waa waxa khuseeya haddii uu kugu dhaco qof caymis haysta laakiin waxa uu bixinayo uu aad uga yar yahay dhibaatada kuu geystay, ama caymisba aanan haysan gebi ahaanba. marka waxaa muhiima inaad ku darsato gaarigaaga waxa lagu magacaabo uninsured or underinsured motorist damage, taasoo micnaheedu uu yahay haddii qof uu kugu dhaco caymis haysta laakiin wuxuu bixinayo aad u yar yahay amaba aan caymis haysan. waxaa lagu qiyaastaa boqolkiiba 15 dadka Maraykanku inaanay caymis haysan. sidaa daraaddeed bay aad muhiim tahay inaad ku darsato coverage-kan. gabagabadii waxaa muhiim ah in aad weydiisato qofka caymiska iibinaya inuu si faahfaahsan kuugu sharaxo waxa uu kaa iibinayo.
waayo waxaanu aad iyo aad ayay muhiim u tahay markaa ma aha inaad yaraysato. dadkeena Soomaalida ahi nasiib daro badanaa waxay fiiriyaan qiimaha bay aad uga walwalaan, laakiin maba fiiriyaanba maxaa laga bixinayaa haddii ay dhibaato soo gaadho. Marka waxaa aad iyo aad ayay u wanaagsan tahay inaad la xiriirto qof luuqadda yaqaana oo caymiskan ka shaqeeya sida aniga oo kale ama ejentiyada kale ee Soomaalida ah magaalooyinka aad degan tahay haddii ay joogaan. haddii markaa aanu jooginba qof luuqadda yaqaana meesha aad degan tahay, qof luuqadda yaqaana ayaa la sii kaxaystaa caymiskana fahmaya. waayo waa laga yaabaa dee qof luuqadda yaqaana intaad sii kaxaysato laakiin caymiskiiba aan wax badanba ka garanahayn. sidaa daraaddeed wixii aad u baahnayd laga yaabo inuu ku yidhaahdo uma baahnid. aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin daawashadiina.